بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يعني ما لا والله قفي عين قف بني آدم إنه يسوق سكور ربه ولا يسمى وربنا تانولا يعني بدن با ما تي في أما قول الجرائد أما قول الراديو وهي ما تنا وكورسين ولا جينا ورما بحين ولا جينا تي في متجين واحد ضدك الضاوضة مساجد داوم بك قاتنا عشان ده هي الله ده waxaan salaa cali markuu iska warramaad ka dambaysid calina diidin uu warramo marka wax badan oo sheego runtii ay ku kordhinaysaana ma jiro waqtigiina la lumiyo maaha anu raga halkan fadhiyo oo ka wada da'weynaan u maleynaya sheekh maxamed umar mala isku dhadhownahay mustafa xaj ismaaciil haaruun baa la yidhaahdaa reer wadaadaaba ka dhashay aabahay xaaji baa uu ku magac dheeraan sheekhu ahaa awogay aw haaruun baa la odhan jiray awogay ka dambeeya aw yuusuf baa la odhan jiray reer culamo oo diin ku taxan ayaan ka dhashay reer ahaan gobolka burcaan ku dhashay waqtigii isticmaarkaanan dhashay intii aan dowladda soomaaliyeed dhalanin dadka geedka hoostiisa ku dhashayna waa ka mid ahay inkastoo aabbahay allah u naxariisto 45 sannadood buu cadan deganaa 1963 buu ka soo noqday laakiin dhaqanku wuxuu ahaa in islaamaha loo diro baadiyo ay baadiyo ku dhashaan iyadoo la diidan yahay dhakhtarka iyo raggaa joogiya waxaasi aanay islaamuhu rabin ee loo diro hooyadeedoo baadiyo joogta inay baadiyo lagu soo umuro intaanu walaalaanay nin qura nagaga dhashay cadan intayadii kaleba baadiyaana loo diray baadiyaanu ku soo dhalannay baadiyaha gobolka togdheer ee burco ayaan ku dhashay isagaan wax ku bartay malcaamad dugsi hoose dugsi dhexe institutekii jarmalka ee burco ku yaalay intaasaan ka baxay takhasuskaygu tumaalnimada laydhku ahaa jaamacaddii soomaaliyeed baan ka baxay 1980kii iyadana takhasuskaygu tumaal laydha baan kaga baxay korontada tumaalku waa farsamo yaqaan laydh baan kaga baxay jaamacadda kadibna waxaan noqday macallin dugsiga farsamada gacanta ee jarmalku dhisay ku yaalla magaalada burcan macallin ka noqday markaan muddo sanad iyo meelaha joogay dowladdii soomaaliyeed baa ay xidhay dowladda soomaaliyeed ma rabo wax badan inaan ka sheego laakiin inta meelooda wax ku xidhi jirtayba waan soo maray station police waa laygu xidhay NSS waa laygu xidhay xero gulwado waa laygu xidhay xero military waa laygu xidhay dhabarjabin waa laygu xidhay jeel waa laygu xidhay weligeyna maxkamad layma taagin mararka qaarkoodna sanadaan ku jiray mararka qaarkood baan 30 bilood ku jiray calaa kulli xaal waxbarashada diineedna waxun bay ahayd un culamada soomaaliyeed ee waddanka degan wixii aanu ka bowsanay ma jirin waddan dabadeed aanu baxay intii dambana saanu joogo un waddanka soomaaliya ayaa dagaaladii jabhaduhu ka dhaceen magaalada burcaan joogay markii 1988 jabhadu soo gashay wakhtigaas baan waddanka ka baxay yurub iyo meelahaasaa niman xanuunsanayo aanu walaalana geeyey anigoo yurub joogaa dowladdii soomaaliyeedna dhacday ilaa 99kii baan deganaa yurub march 1999 baan dib ugu soo noqday magaalada hargeysa ilaa haddana hargeysaan deganay laakiin socodkayga yurub waa tiro badan yihi 12 sannadood dhamma burciya hargeysa un baan ka dhexeeya laakiin waa badan yahay socodkayga aan ku noqnoqdo yurub iyo meelahaan ku noqdo qaab nololeedkii soomaaliya waagii horena ee lixdanaadkiina dimuqrasi bay ahayd dimuqrasi qabiilkan uun ku salaysan haddaba aragtaan
waxaan xasuustaa iyadoo 1969 68 meelaha markii doorashooyinkii dhacayeen dadku intay wadada maraan baa waxaa la odhan jiray dhulka yaale ilaahay baa leh ka sokowna reer hebel baa leh saas cirka yaale cirkiiyo dhulka la sheegay jiray hebelada jiray dowladdii kacaanka ee Soomaaliyeed markay qabsatayna scientific socialism baa la qaatay scientific socialism kuna wuxuu noqday diin la dirir annaguna dhalinyaro uun markaa waxoogaa diinta ka garatay oo aan systemkaa ku qanacsanayn hortaagan baanu ahayn ma jirin cilmigu sidan uu hadda u faafsan yahay oo dowladdii Soomaaliyeed waxay lahayd censorship aan ogolayn kitaab aan dowladdu ogolaanin waddanka ma soo gali jirin waddankuna sidan uu iminka isaga furaya isagama furnayn diyaaradaha dibadda ka yimaada only xamar oo ka soo degi jirtay lama ogolayn waddanka inta kale diyaarad dabadeed inay ka soo degto isdaradeed wax kasta oo waddanka soo gala censorship faafreeb wax la yidhaahdo soo mari jiray marka kutubtu almost mamnuuc bay ahayd dan qisa idiin sheego dhowr iyo 70 anigoo dumar tafsiir u dhigaya habeenkii baan dhigi jirnay guri madow habeenku markuu dam noqdo ayaad guri tagaysaa dabeetana halkaasaad waxoogaa dhowr dumar oo la soo ururiyey tafsiir ugu akhriyaysa tafsiirkan haystay markaa waxaa kitaabkan jalaalaynka la yidhaahdo jalaalaynadii waagaa dadku haysteen iskuma rakibnayn waxay ahaan jireen dhowr xaashiyood oo isku jiri jireen dabeetana gal sare buu leeyahay oo ku daboolan habeenba labada xaashiyood aad dhigaysaad kala baxaysaa ila wuu furfuran yahay labadii baan la soo baxay habeenkii anigoo meel la sii dhukusaya ayaa dabayliyey timo labadiina dabayshii baa qaadatay yani kutub ma taalo badani aad bay cidhiidhi u ahayd culimo waddanka waa deganayd laakiin lama ogolayn inay wax dhigaan ama wax akhriyaan bale waxaa laga yaabaa haddaad nin dhallinyaro ah tahay inuu kaa boqo waayo dowladda ku xidhaysa inuu kaa fogaado nin inuu tafsiir caama ama akhriyi jiray weliba Soomaaliya waagaasi tafsiirka bisha Ramadaan baa inta badan la akhriyi jiray waqtiyada kale kutubta fiqiga ama naxwa ama waxaas la akhriyi jiray على كل حال waxaan uga dalayaa aan arrintan u tilmaamayo waxa weeyaan jaaniska ay idinku haysataan ma oolin waaga jaaniskana ay kutubtu baaqiina jeeb ku sidataan ku jirto meel kasta lagu iibinayo ay kitaab aad u baahataan helayso electronically aad shaamilo soo download gareynayso oo dhowr iyo 10,000 oo mujalladay ku jiraan yani jaaniska sida tan ee qofku research samayn kara wax baxthi kara wax baari kara waaga ma oolin لكن waxay yaalay dad committed oo dadaalaya mala daacadnimada ku jirto oo in Ilaahay wax ugu dhawaadaan ay ku jirto marka aanu qadiyada jecel inaan ku celiyo waxa weeyaan war nicmada haysataan ku saabsan diintu sida ay maanta u fududahay inuu qofku barto may oolin waxay ahayd wax aad u cidhiidhiya sidaad u xasilisana ay inta badan ku xidhnaanayso sida aad wax u akhrido xataa iyadoo wax akhriskaagu fiican yahayna aanad helaynin wixii aad akhriyi lahayd uu cidhiidhi kugu gelayo intan dambe na dee meelaha uu Soomaalidu joogto baan wax ka sheegi jirnay anigu macallin baan ahaan jiray saa daraaddeed sheekh maan noqonin weli bana gaadhin macallinkuna daris loo diro buu soo diyaariyaa oo daadhiga waana laga yaabaa waqti aanay culamada Soomaaliyeed haysanin qalabka technology-ga inaanu Yurub ka hortagayo wax akhriyo dad wuxuu akhriyay aan xasuustaa ajaladahan ugu badan hore ee 90-yadii dadku dhageysan jireen maqaaxaan ku akhriyi jiray Soomaaliyeed oo Norway maqaaxid Somali Welfare Leader Somali Welfare Organization ayaa ku yiri war labadii toddobaad maalin wax ma idin akhriyaa ay uga saydaadeen ha niman carabaha ka tagay oo aan diinta isku fiicnayn baa ku badna markaasaan bilaabayna muxaadaraad xawla al-iimaan arkaan al-iimaan iyo xawla al-xadaara al-islaamiyya ka warramo
nin dhallinyaraa baan ah hadal badan 2 saac iyo dheeraad baan maalin leen 14 cashaan mar helaya marka waxay noqotay markaa inaan 2 saac iyo dheeraad hadlo dadka markaa cajaladahaas baa soo gaadho markaas la siiyay mala ninkan sheekh weyn waa sheekh weyn marna ma noqonin laakiin uun fursad aanay jirin anigu in wax la duubo maan rabin waxaan xasuustaa waxba ha duubinaan ku idhi nin dhallinyaraa baa intuu kamarad iska soo qaatay buu wuxuu yihi sheekha ma fadhiyo wax akhriya ma iska tag xagga dambe uma fadhiista markaa waxaan kala doortay inaan wax akhriyo iyo inaan iska tago markaasaan iska akhriyey dariskii dambaan imi maalintii dambe cajaladu sidaan imanka ay u badayn uma badnaynay VHS bay ahaan jireen VHS-kana warshad baa badin jirtay keliya intay cajaladii qaadeen bay warshad geeyeen dabeetana dhowr boqol cajaladood bay ka dhigeen iyagoo meesha ku iibinayaan ugu imi nin cabdillaahi xuseen kaahiye la yidhaahda iyo inaan loorame la yidhaahda iyo axmed baaruud iyo iyagoo iibinayaan waar waa sidee dee waxaana iibinaysaa waxay dhahayn sheekh masaajidkaan kirada kaga bixinayna markaasaan iska aamusoo sirida masaajidkaan kirada alagaga bixiyo marka waxaan dadku duubayna anigu kuma talagelina inaan duubo TV-na weli ma tegin raadiyona weli ma tegin wadaadku su-aalaha badan uu dadka weydiinayana mala in soo ka jawaaba bay ku fiican tahay anigu intaasaan ku gabagabaynaya wasalaamu calaykum